kani waa hanad yare waa wiil yar oo da'yar 12 jir ah hanad shaqooyinka kala gedisan oo qoyskiisa ku dabaro isla markaasina nolol maalmeedkooda iyo cuntada ay cunayaan ka soo saaro waxa kamid ah inuu jaamacadaha gudaha magaalada Hargeysa ku yaala qaarkood wax ku hor iibinayo sidoo kale hanad waxa uu isku dayaa mararka qaarkood inuu qoyskiisa ku qoodiyo in uu gaariyaasha masaxo inuu kabaha dadka u baalasheeyo sidaasina uu kaga soo saaro waxoogaha lacaga kani waa hoyga magaalada Hargeysa hanad hooyadii iyo xaruurtoodu ay kaga nool yihiin waa markii yuriso waxa ka soo bilaabay beer mbi magiyo biscuit waxashada mana xabistay jaamacado hawlaaba kartoon iyo balan qaaday kartoomari ama iibinaya waa dhameeyo waxay soo baxan la lacagtina walaalkayba usii mariyo waxa doonaya marka baninka kale ku guuleysto ee si noqdo in xaafadaydu dhan waxa doonaya chicken oo dhiso waxa doonaya dhanna u siiyo oo xaafada kale soo caawiyo bul degana waxaysan gudoomiyaha ay balan qaaday boarding ilaa jannada halgeeyo anigoo hanad hooyadiya oo doonaya in la caawiyo sibaan deerahay ubadkana qaar agoonigayn waxaan u mahadnaqayaa inanka caawiye inankayga igu dara boardingka ilaa inuu jina fardo soo geeyo awlaadan ilaa barkeeyo isagoo ina yara ayuu hadana doonaya ilaa yarantiisii inuu wax weyn ii taro wuxuu doonaya inuu heer ubadkooga iyo anigaba ii gaarsiiyo heer inaan taajirno oo kale isagoo wuxuu doonaya heer markuu uu weynaado inuu isagoo da'da isagoo la iska daa markii uu yaraa ilaa imikada wuxuu ku taama habeenkii inuu cashay keeno oo hal habeen gaajo markii waa arka hooyadiyo aad wallahi ta'ala amba ubadkoogii u baahan markuu arkana habeenkii wuxuu heer u gaara inuu gaariyaasha u masaxo amba ragga baalashka uu mariyo waxaan doonayaa walaal in la caawiyo oo ummadda Nabi Maxamed caawiso waayo buul baan galaa waxaan rabaa in waxaan iska hay dayar ina wixii aan u baahanahay haddii noqoto waxaan ka ganacsanayo inaan dhigto taangi inaan ka ganacsado dhuxul ubadkayga sidii aan u korsan lahaa aan u kaalin gelin lahaa maadaama inanka yar laga gudoomay aniguna aan dayarahay intaasaan niga doonay inaad igu caawisaa